dunida waxaynu u nimi in layna imtixaamo waana imtixaan in badan baynu tilmaamnay ama qur-aanka soo aroorin oo ilaahay tilmaamayo kullu nafsin daa'iqatu lmowti wanabluukum bisharri waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun dunida intaynu joogno shar iyo khayrba in laynagu imtixaami doono dadku inta badan sharka imtixaankiisay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan darra ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaanka dadku inta badan wuu gartaa waana la arkaa dadka inta badan inay ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa tacaala markay dhibtaa la kulmaan dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada kullu haada iyana waa imtixaan kale ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay nebi sulaymaan oo imtixaan ballaadhan la geliyey oo ilaahay weydiistay imtixaan aan isaga dabadii cidnaba intuu salaad ama wakhti macrad la soo maray wax dhaafiyey ayuu rabbi wuxuu weydiistay imtixaankan ka weyn in la geliyo oo ah boqortooyo aan cid aniga iga dambaysa u cuntamin in lagu imtixaamo tii baa la siiyey dabeetana wuu ku guulaystay imtixaanka markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu innahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay oo fiican inuu yahay oo noqosho badan qur-aanka ilaahay ambiyo kaluu tilmaamo imtixaamo oo dhib lagu imtixaamay iyana waa rusul waa ambiyo qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane nebi ayuub oo la imtixaamay oo imtixaankiisu xanuun yahay sunnadana culammadu waxay tilmaamaan axaadiis ay sugaan inuu 18 sannadood uu bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guulaystay wuxuu ku yidhi fii nafsi suura lafdigii lagu tilmaamay sulaymaan inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu hellay addoon sabir badan inuu yahay isaguna nicma alcabd awaabna waa lagu sheegay idan labada imtixaanba waa laba la ismaray ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo labada imtixaanba la mariyey laakiin labada imtixaanba waxyaabaha ilaahay faray inuu adeegsado si ugu guulaysto imtixaanka dhibta ah fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu nebiga faray waxaan ku amray ku dhawaaq gaaladu waxay sheegaysana hawdhegtaagi ka jeeso adugu wixii lagu faray samee iyaguna waxay doonaan ha sheegaan waa saaxir waa kaadib waa shaacir waa kaahin waa kan ay waa la maaga ilaahay wuxuu ku yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwan kugu jeesjeesaya annagaa kaaga filan baa ilaahay yidhi aday kugu jeesjeesayaan laakiin xataa taada dembi ka weyn bay ku jiraan ومحيا الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون بإلهي وقوى الله سبحانه وتعالى عدك لكل ما نين يولى عابدية هذا النبي محمد عريري بحلالي كحلالي ربي وحلق الشيء يدين كيسي سيدا اللوغو هريمي واحد قياس ده أذيقه نقول لك يا بين هذا تعود بين الشيء ندتك بقى قبلي بل واحد قياس ده يضع أدير كاغا اللحمي قاهي يقول طبق الله وهالكاد استاكتبا marka tiraado war ilaahay ka baqa uu yiraahdo ka yar anaga dhalayo waxba ma sheegayo waa been wada waxayaa dhageysanina maxaa ku dhici lahaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilaha baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiis sida looga jeestay buu ciriiri galay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya ciriirigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun baa ilaahay وأقولنا إن لا ابتدوا عريريوميسو وحي كهض ليان درادي آيات كلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك آيات بدن با إلهي كقول ربي يا نبي عليه الصلاة والسلام عريريك سوق عليك لكن ما الحل حوكك بحية إلهي وحولي فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي والتصبيح صوت أدقوا التصبيح هذا كم مرة يا مسكوا هيا حمدك الله سبحانه وتعالى انت سجودا حمد نظامي علماء يرادا halka kan waxa nabiga loo sheegay dawaa yustashfa bihi min ضد الصدر وترياق للحزام bayraada dawa lagaga caafimaado laab ciriiriga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah سبحان الله وبحمده هي الصلاة إلهي سبحانه وتعالى لا تكذو ولذلك أي علماء وحي لينا أيضا وحي شيء جيسة تصبيحاتك إن يهين عريرك قفك مسلم كي مركو قلوحو كقبحو عريرك نفسك هي مركو كقبصده وهو حلق قبحو قرآنka dhul badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay mushkilada haysato waxa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso مثلا في سورة قاف إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون waxay ku hadlayaan
afxuma ay sheegayaan alle iyo diintiisa ka sheegayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegayaan fasbir calaa maa yaquuluun baa ilaahay yidhi waxay ku hadlayaan ku sabir oo maxay sameen wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla اlغuruub wamin alleyli fasabbixu waadbaara sujuud baa ilahay tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle waagu intaanu beryin iyo cadceeddu intaanay dhicin iyo habeenkii mufasiriinta badh baa meeshan salaad ku fasira mufasiriinta badhna daahirkeeda ku fasiraan ayan kaanat waa labadii masale aynu tilmaamaynay dhibtu markay qabsato in la tasbiixsado fii suurati ghaafir ilaahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaq wastakfir lidanbik wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar sabir ilaahay yaboohiisa iyo ballankiisa waa dhab oo dembi dhaaf weydiiso oo wasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya alle mahadnaqi fii suurati tuur baa ilaahay wuxuu leeyahy wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum wamin alleyli fasabbix waidbaara الsujuud waidbaara الnujuum fii suurati اlinsaan ayaa ilahay wuxuu leeyahy fasbir lixukmi rabbik walaa tuطic minhum aathiman aw kafuura wadkur isma rabbika bukratan waasiila wamin alleyli fasjud lahu wasabbixhu leylan طawiila waxay culammadu yidhaahdaan meel kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inta badan sabir la faro oo dhibi ay qabsato khaasatan dhibta nafsiga ah waxaa la faray nebigu calayhi salaatu wasalaam dawadiisu inay tahay inuu tasbiixsado alaslu dikru llahi subxaanaه wa tacaala taطmainu اlquluub alaa bidikri اllahi taطmainu اlquluub kaasaa asala tasbiixda iyo taxmiidkuna waxay ka mid yihiin dikr اllahi subxaanaه wa tacaala si gaara markaa loo faray nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhi hadduu dareemo oo hadal xumo iyo af xumo iyo cay iyo ceebayn iyo haydaartayn haddii lagu hayo inuu maxay tasbiixsado waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu soo naqliyey nebi cidhiidhi jasadi iyo mid nafsiiba qabsaday oo ilaahay tasbiixdan isna ku badbaadiyey wadannuuni id dahaba mugaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha illaa ant subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin nebiyullaahi yuunus qisadiisa qur-aanka macruufkii waxay tilmaamaysaa inuu ka tegey duulkii uu la joogay badda uu galay doontii laga tuuray dabeetana habeen madow culammadu say sheegaan oo bad madow haddana uu sii galay xuut hungurigii faltaqamahu lxuut baa ilaahay yidhi xuut baa haddana liqay baa la yidhi halkaa isagoo ku jira fanaada fi dulumaat baa ilahay yidhi mugdiyadu ka dhex qayliyey laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilaahu keligaaba xaq lagu caabuda subxaanak xumaka hufnaantaada meeshan uu ku jiro wuxuu sugayaa bay culammadu leeyihin inaanu dulmi alla sameeyey aanu ku gelin laysa bidallaamin lilcabiid wuxuu sugayaa wax isaga xaggiisa ka yimi uun inay tahay saa daraaddeed buu wuxuu leeyahy laa ilaaha illaa anta ilaahu adaa keliga xaq laguu caabudaa subxaanak xumaka hufnaantaadee innii kuntu min aldaalimiin buu leeyahy anigaa inta dulmi fashay ah ee adiga ficilkaagu ma aha maxay qadartaada dulmi kuma jira buu leeyahy ee anigaa inta dulmi fashay sababu najaati baa ilaahay inooga warramay wuxuu leeyahy falowlaa annahu kaana min المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون haddii la la'yahay baa ilaahay leeyay inuu ahaan jiray kuwa tasbiixsada kuwa tukada kuwa tasbiixda wada haddaanu sidaas ahaantuu ahaan jiray baa ilaahay leeyay wuxuu ku sugnaan lahaa meesha tan ilaa waqti dheer taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay wuxuu tilmaamaya tasbiixaadkiisa ilaahay ku badbaadiyey dayqa iyo cidhiidhigu ku jiray ee ah inuu badiliqday oo marka hore baddu degeed la ciirsadaana bay soomaalidu tidhaahdaa baddu qofku markuu qarqoomo waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato isagoo bad ku dhaca haddana bahal silqa ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixdii watay tasbiixdiisii inuu ku badbaaday waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu raalli noqdo oo aanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin iyagoo aayadda suuratu taah adeegsanaya suuratu taah ilaahay wuxuu leeyahy maxay fasbir calaa maa yaquuluun وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بإلهي النبي قال عليه الصلاة والسلام صبر waxay ku hadlayaan reef xumaa oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi fasabbix وأطراف النهار بالليل ما لتدعلدين يعني استوعب التصبيح اليوم كله هبين مال عدعد صبح عدعد وقت كسر الله الشيء أول الليل هي أطراف طبعا تسبيح ناس محي كردين لعلك ترضى كي ترضى بالليل سلاب تاضى يعاف إذا عد كستور ورهيو أما والبهار هيو أما عريري الدنيا وهيو أما مشكلة حلين كرواية طرائق ذا لقى بحكوات يا أهني نفتادو بدبادو
in qalbigaagu dego aad xasisho adduunku aanu dhib kugu haynin waxaa laga helaa baa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaah adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa asalku waxa weeyaan qofka muslimka ah inuu ilaahay xuskiisa badiyo intaad aadana iyo makhluuq xusi lahayd maxaa la yidhi aad odhan lahayd inaad rabbigaa xuskiisa badiso adkaarta wixii kuu fudud aad akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwa adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a maalin kasta yeelatid wardigu wakhtiba ma qaato wakhtigaad shaqadaada wadato ayaad wardii kartaa waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa waxaasoo warwariye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa sala allahuma calaa muxamedin waala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin